dowladda isu tagga imaaraadka carabtu markii ugu horeysay hadal raganimo leh oo malaha dowladaha carabta qaarkood aysan ku hadli karin ayay bannaanka la timid dowladdani waxay leedahay waddankayga lagama weerarayo waddanka la yidhaahdo iiraan haddii ay noqon lahayd hawada haddii ay noqon lahayd badda iyo haddii ay noqon lahayd dhulkaba suuragal maaha tallaabo military oo waddankaasi laga qaado in innaga la inoo dhex maro sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AFP go'aankan ayaa imaanaya bay leedahay wakaaladdan kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu toddobaadkii hore sheegay in ciidan badeed oo Mareykanka ah ay ku sii jeedaan gacanka isla markaana Washington ay si dhow la soconayso gaar ahaan kadib tallaabooyinka amni ee Tehran ay ka qaaday mudaharaadyadii ka dhacaya meelo kala duwan ay Tehran ka mid tahay oo caasimadda waddanka Iiraan ah wasiirka amuraha dibadda ee dalka isu tagga imaaraadka carabta ama wasaaradda aan ilaahda ayaa bayaan ka soo baxay lagu yidhi dowladda Abu Dhabi marnaba ma aqbalayso jiritaanka ama suurtagalnimada in weerar laga abaabulo gudaha waddankeena kaas oo lagu qaadi doono gudaha waddanka la yiraahdo Iiraan waa sida ay leeyihiin inkastoo imaaraadka uu martigeliyo baa la yidhi askar badan oo Mareykan ah kuwaas oo ku sugan saldhigga cirka ee loo yaqaano Al-Dhafra oo ku dhow magaalada Abu Dhabi haddana dowladda ayaa adkaynaysa mowqifkeeda dhexdhexaadnimada waxna ay leedahay marnaba nagama suuragalaan in waddankeena tallaabooyinkaasi gudihiisa laga fuliyo ugu dambayntii imaaraadka warka ka soo baxay waxa uu carabka ku adkeeyey rumayntiisa ah in xallinta xiisadaha hadda taagan la gaari karo oo keliya xoojinta lagu gaari karo oo keliya bay yiraahdeen xoojinta wadahadallada nimista xiisadaha iyo waliba ku dhaqanka shuruucda caalamiga ah iyo ixtiraamka wadamada madaxa bannaan taas oo dhammaan tallaabooyinkan ay muujinayaan inay gaashaanka u daruurayaan damaca ka imaanaya dowladda Washington ee suuragalka tallaabo military in laga qaado waddankaasi isla bariga dhexe ee Iiraan waxaad moodaa wararka meelahaasi caawa inay ku ararurayaan sababtuna waxay tahay haddii Iiraan tallaabo laga qaado adduunka ayaa la isweydiinayaa gobolka bariga dhexe sida uu isku bedeli doono haddii gobolkaasi dagaallo culus ay ka dhacaanna dhaqaalaha adduunka awoodaha isbarbaryaalla ee isbaacsanaya ee dunida iyo weliba jihaynta caalamka ayaa laga baqayaa inay isbedelaan dowladda Iiraan war baa ka soo baxay xogayaha golaha sare ee amniga qaranka Iiraan ninka la yiraahdo Cali Larijani ayaa si weyn u dhaliilay Israa'iil waxana uu ku eedeeyay in ay hurinayeen tallaabooyinkii dibadbaxyada ahaa ee waddankaasi ka dhacayay xitaa la yiri jiljilay hogaamiyaha ugu sarreeya waddankaasi ama murshid al-acla ninka u yaqaanaan waa Ayatollah Ali Khamenei hase haatee dhammaadkii bishii December dowladdu waxay bilowday inay qaado tallaabooyin xakamayna oo dhinac kasta looga soo jeesanaya waxa hadda dhacaya Larijani ayaa isniintii sheegay in la aqoonsado hogaamiyaashii kicinaya rabshadaha qaarkoodna jeelka loo taxaabay oo ay linta ku cabayaan sida uu leeyahay waxaan sidoo kale uu sheegay dadkaasi qaar in mala awaal beena loo sameeyey oo lagu siray waxyaabo nafsadooda halis geliya waxa uu sidoo kale tilmaamay isagoo la hadlaya wariyaasha magaalooyinka ay ka sameeyeen kooxahan arrimaha u muuqanaya wax argagax gelin ah sidoo kooxaha is abaabulay qaarkoodna hub culus iyo weliba qoryo waxdila ayaa loo keenay buu leeyahay taasi oo qasabtay in tallaabo ay qaadaan samarkaana jeelka loo taxaabay waxa uu sidoo kale beeniyay dadka dhintay inay gaarayaan ilaa iyo 6,000 oo qof sida hay'adaha xuquuqda aadanaha Iiraan wax ka qoraya ay tilmaameen waxa uu yiri dadka dhintay 3,117 qof ayay gaarayaan oo sida wax loo tilmaamaya ma jiraan runna uma aha waxa sidoo kale la tilmaamay 2,427 ka mid ah dadkaasi inay ahaayeen shacab iyo xubno ka tirsan ciidamada ilaalada amniga qaranka ee dowladdaasi halka inta lagu tilmaamay in ay kicinayeen kooxaha argagixisa waa sida dowladdu ay leedahay Iiraan waa la gelgelayaa laakiin lama oga sida ay isku badbaadin doonaan goolka bariga dhexe in muddaaba waxa indhaha lagu hayo warbaahintu ay tabinayeen dagaalka diblomaasiyadeed oo biyaha hoostooda la iska hardinayay
xukuumadaha riyaad ama dowladaha riyaad iyo abudabi oo ay kala hogaaminayaan labada boqor ee dunida inta badana waxba u aqoon marka xukunkooda loo yimaadana aad wax u dareema waa maxamed bin saayid iyo maxamed bin salmaan hase haatee markii ugu horreysay dowladda boqortooyada sacuudi arabiya ayaa daboolka ka qaaday jiraalka wararka tilmaamaya in labada dhinac uu u dhexeeyo khilaafaad hase haatee waxay leeyihiin khilaafaadku maaha mid dhammaystiran oo dhinacyada kala duwan oo xiriirka saamaynaya amiir faysal binu farxaan oo joogay baa layidhi dalka Poland oo ka qaybgelaya shir jaraa'id oo ay wada qabteen dhigaysa waddankaasi ayaa markii ugu horreysay wariyaasha sikadiisa waxay ugu xadeen su'aashaasi waxaana uu yidhi runtii walaalaha iyaga imaaraadku waa jiraa khilaafaad naga dhexeeya iyo kala aragti duwanaan laakiin waxa uu ku salaysan yahay oo keliya hannaanka jihaynta siyaasadda gudaha waddanka yemen imaaraadka iyo sacuudiga waa xulufo istaraatiiji oo muddo dheer wada jiray saaxiib iyo walaalna ah sidaa daraaddeed waxa hadda dhacaya waa oo keliya kala qaybsanaan dhinaca afkaarta ah dowladda sacuudi arabiya ayaa horaan sidaad la socoteenba waxay duqayn ku qaatay hub ay dowladda imaaraadku gelisay mukalla oo kooxaha gooni goosadka s t c la yidhaahdo ee dhinaca waddanka yemen loo wareejinayay hase haatee arrintaasi waxay ka dambeeyey dowladda sharciga ee caalamku aqoonsan yahay ayaa warqad soo saartay oo ku amartay abudabi inay isaga baxaan halkaasi kadibna wasaaradda amuuraha dibadda ayaa ku dhawaaqday waa imaaraadka in ay joojiyeen wada shaqayntii halkaasi ka socotay ee dagaalkii argagixisada ciidamadoodana ay kala baxeen gudaha waddanka yemen hase haatee marka la fiiriyo gobolka bariga dhexe xiisadiisu aad bay u cuslayd imaaraadka oo ku jiray xulufo israa'iil ay hogaaminaysay iyo sacuudiga oo xulufo uu ka mid yahay turkiga wata ayaa loolamaya waana meelaha la isku jitaynayana waxaa ka mid ah soomaaliya hase haatee codkii sida hoose janaalada diblomaasiyadda la isugu marinayay ayaa hadda looga qaylinaya ama laga sheegaya mikrofoonada warbaahinta waaweyn ee adduunka taasoo sacuudigu leeyahay waa dhab